Yeah, okay? Very good. Okay, guys. Okay, I'll give you guys 1 minute. Talk to each other 2 by 2. Repeat after me. I want to buy. I need. I need. Yes. The yellow one. What's the green one? Yellow. Lime. The green one is? Lime. Lime. Very good. Okay, what about this one? Do we have this in Somaliland? Oh, hello. Assalamu alaikum. My name is Teacher Ahmed Seattle, and welcome to Automatic American English College. I'm very excited for you to join me. Today, we are going to watch an in-class practical of some students who are speaking and using the English language. Dhammaantiin soo dhawaada. Magacaygu waa Macallin Ahmed Seattle. Arday badan baa na weydiiya sidee u dhigtiin marka classka dhigisiin online amba hab offline habkeed u dhigtiin. Marka maanta waxaan yara daawanaa muuqaal arday luuqadii isticmaalaysa in-class practical. Asla yara eegno habka casharada u bixino iyo sida ardayda u caawino. Markaasaa ogaan karta adigana sideen ku caawin karna amba qof luuqada u baahan ad garanaysa. Let's take a look. Do you have? Yeah, okay. Let's keep going. Buy. Purchase. Sell. Hadda waxaa arkaysiin number 1 dhawaaqu waa muhiim. Pronunciation was very important. Dhawaaqa markaas ka saxdid waa albaabka luuqada laga gali karo. Haddii dhawaqaagu sax yahay waxay kaa caawinaysaa hadhow in lagu fahmo. Marka casharadayna online amba offline ba 100% waxaan horta saarnaa dhawaaqa pronunciation. Sidee loogu dhawaaqa ereyada in badan ma ku soo celinaa waxaan isku daynaa inaan tusaale ardayda uga bixino. Vend, change, rip off. It costs an arm and a leg. Sidoo kale casharada waxaan isku daynaa inaan ka dhigno fun amba interesting amba waxa ardaygu xiisayn karo. Because marmarka qaarkood qofku markuu luuqad baranayo uu caajisi kara. Sometimes you get bored when you're learning a new language, and that's why we try to make it interesting. You want to do practice with me? Yes. On the camera, huh? You ready? Okay. All right, come on. All right, listen to imika waan isla yara eegno arday oo si practical u qaadanaya casharkii. Ardayda waxaan isku daynaa inaan vocabulary-ga ka dhisno iyo sidii u adeegsan karaan amba u isticmaali karaan. Once the student knows how to use the words and how to use the vocabulary correctly, they're more independent to start speaking with the language. All right, come on. All right, listen to us. We're going to practice, okay? He's going to come to the Seattle shop. Casharkan ay maanta ardaydu qaadanayaan waa mid ku saabsan English in the market. Amba luuqada Englishka marka laga adeegsanayo amba la isticmaalayo xagga suuqa. Waxay ka caawinaysaa qofka markuu wax soo iibsanayo isagoo luuqada Englishka isticmaalaya. Okay, come on up. All right, we're going to practice 2 by 2. I'm going to ask him, I'm going to talk to him like I'm in America, okay? So it's not easy, so he's going to try. Remember, if you don't understand, what do? You smile and you nod, okay? All right, that's what you do. Yeah, that's what you do. So I'm going to talk to him like I'm in America, and we're having a regular conversation, okay? All right? All right, so I'm coming. So this is your shop. You know, I'd like some watermelon. Do you have watermelon? I'm going to talk very fast, and I want him to try and understand, okay? I'll talk really fast. Brother, I'd like a watermelon. I'm really thirsty. I was walking around Hargeisa, and I need watermelon. Do you have any watermelon? Yes, I have. Marka inkastoo luuqadu ku cusub yahay, masha Allah, mar labaad ardayga waan hamleynaya u dhegaysanaya. Qofkii uu la qabsanaya. Maxaa yeelay markii hore loo sheegayba Soomaali lama isticmaalayo. Marka qofku waa khasab inuu barto oo isku dayo inuu fahmo. Waa inuu qofku dhagaha furo, isku dayo inuu body language ka fahmo, isku dayo inuu fahmo ereyada kala sentence-ka ku jira sida micnihii u keeno. Okay, where's the watermelon? Can you point it to me? Oh, mashallah. Okay, but that one is I don't like that one. This looks old. Do you have a new one? No. Okay, all right. That's the only one. All right. Okay, marka xooga waxaan saarnaa ardaygu inuu soo celiyo hadalka. Maalin walba haddii aad English maqlisid oo English dhegaysanaysid waliba waxyaabo fudud intuu soo taabsiyo kala ardaygii wuxuu bilaabayaa inuu kalsooni helo. So online hadda ku dhiganaysid amba offline ba labadaba waxaan isticmaalnaa sawir videos dhegaysi wuxuu doonaa ahaado ardaygaas lagu fahansiinayo micnaha marka ardayga loo gudbiyo ardayga kalsooni buu helayaa marka waxaa ardayga lagu tababarayaa okay hadalka hadaba soo celi. Right, that's the only one. All right, how much does it cost? $5? What is that? That's what? That's a ripoff. That's a ripoff. All right, brother, I would like papaya. Do you have papaya today? Can you please show me the papaya?
Oh, that's the papaya. Let me see. Oh, can I inspect it? Can I look? Can I see? Can you bring it closer? Okay. I don't like that one. Yeah. Do you have another one? No. No. Okay. Sorry. Oh, nice. Can I see? Yes. Okay, I Yes. need two of them. Do you have two mangoes? I need another one. No. You only have I don't one? have anything. How much is this mango? 0.5 $. 0.5? Yes. English programs amba collegeada kala duwan waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin waxa weeyaan manhajka isticmaalayaan. Manhajku waa muhiim. That's why in badan waxaan isku daynay manhajka inuu ku salaysino baahida ardayda, nolol maalmeedka ardayda. Haddaad ku dhiganayso online amba offline, waxaad ku arki doontaa waxyaabo taabanaya baahida. Ha noqoto suuqa, ha noqoto dhakhtarka, ha noqoto waxbarashada, ha noqoto goob interviewa, shaqada, waxay doontaa ha noqoto. Waan daraasaynay in badanna waxaan baarnay. Waa maxay meelaha amba xaaladaha situationsku ardaygu u baahan karo luuqadda Englishka. Markaas xaggaasaan ka bilaabnay manhajkeena. Iskuulo badan waxay sameeyaan manhaj bay iska soo qaadaan. Manhaj bay iska soo qaadaan. Waxaan garanayaa meelo badan oo buugaagta isticmaalayaan manhajkooda waxa la diyaariyay 1980 amba 90 waqti hore oo iminka xaaladdu way isbedeshay. Adduunku wuu isbedelay. Marka manhajkeenu inagu meelna kama soo qaadin, waa inagaa diyaarinay. Inta macallimiin oo master isku keenay oo luuqadda ku takhasusay si fiican u bartay ayaan eegnay waa maxay ardayga baahidiisu. Marka online iyo offline ba waa isku manhaj laakiin in Europe bay kala duwan yihiin. So, brother, is that expensive? No. That's pretty cheap. Yeah, but it's very expensive. That's very expensive. Yeah. 0.5 for that? No. How much is the mango? Help me out. He's trying to rip me off. 0.5. 0.5. Oh, okay. Well, I guess. All right. The last thing I need some orange juice and some water. Can you hurry up? The car is waiting for me. I need some orange juice and some water. SQ. Yeah, orange juice and water. Do you have orange juice? Yes, yes. Where's it? Show me. Okay, let me see. Oh, bro, this one's open. This is already open. Astaghfirullah. Oh, sorry, I need a new one. sorry. Do you have another one? I need orange juice. Yes. Okay, thank you. How much is this one? It's $1. $1? Yes. Is that expensive or no? Yes. It's expensive? Yes. Brother, that's a ripoff. I'm poor. I don't have any money. I need a discount. Can you give me maybe Yes. 5,000 shillings? Yes, yes. MashaAllah. I love you. MashaAllah. Thank you. Okay. Last thing I need. I need a bag. You have a plastic bag? No. No? Yes. What's this one? You don't, it's not for sale? It's not for sale. Oh, okay. All right. Yeah. Marka waxaan isku daynaa online amba offline ba ardayga in la maqalsiiyo real English luuqadii oo runa laakiin si amba hab farsamaysan oo qofku fahmi karo xataa hadduu yahay beginner amba advance. Macallinku marka waa in badan inuu la socdo ardaygana muxuu fahmayaa ardaygana maxaanu fahmeen haddaanu fahmeen waa inuu dhinac kale u leexdo dhinac kale ka soo wareego marka muhiimaddu waxa weeyaan ardaygaas sidee loo fahansiin karaa micnaha sidoo kale kalsoonidooda kor loo qaadi karaa iyagoo luuqadii maalin walba step by step baranaya haddaad si fiican u fiirsateen waxaa arkaysaa ujeedadaynu waxa weeyaan ardayga in la ilowsiiyo inuu luuqadii isticmaalayaba waxaan rabnaa inuu ardaygu hadhow idhaahdo waniyo ma English baa lagu hadlayay mise Soomaali inuu kala garan waayaba because markaasuu qofku luuqadda baranaya in isku mid u noqoto maskaxiyan qofka hadduu English ku hadlayo ama hadduu Soomaali ku hadlayo waxaa la rabaa labadaba inuu ku hadli karo marka waxaan isku daynaa ardayga in la ilowsiiyo inuu English ku hadlayo inta macallin ahaa waxaan arkay arday badan oo way warwariyaan waxay ka warwariyaan armo laygu qosla armo garan waaye kalmadii bilow si khaldan ugu dhawaaqa marka waxaasoo dhan la dhaafo oo ardayga laga gudubsiiyo cabsida waxa soo hadiya ardayga inuu isku dayo oo haddana isku dayo wuu khaldaya haddana wuu saxaya haddana wuu isku daya haddana wuu khaldaya haddana wuu saxaya waxaan rabnaa ardaydu inay soo galaan luuqadda enter the language in badan ardaydu waxay sameeyaan hareerihii ka istaagaan way qoraan buugii qalan intii qoraan ilaa waxa ay micnee hareerihii ka istaagan yihiin goormay soo galayaan goormay luuqadda isticmaalayaan goormay isku arkeen iyagu inay luuqaddii ku hadlayaan marka mar walba waxa muhiima macallinku inuu si farsamaysan kalsooni ardayda dareensiyo luuqaddii runta isticmaalo dhawaaqii saxda isticmaalo sidoo kale hogaamiye u noqdo and that's what we try to do saasaan isku daynaa automatic American English College hadda adigu u baahan tahay amba haddaad garanaysa qof u baahan insha allah nagu soo xidh automatic American English College haddii rabaan online amba offline ku bartaan insha allah waxaa arki doontaa amba waxay dareemi doonaa natiijo wanaagsan results waxaan qiimeynaa ardaygaasi isbedel noocee ayuu sameeyey marka aniga waxaa iga qaadan tijaabi programka
barnaamijka tijaabi ardayda dhigana soo wareyso and then egg meeshu saxba online ma lagu baran karaa offline ma lagu baran karaa insha Allah hurry up the car is ready marka sheekhu waa arkaysiin si fiican buu hadalkii soo celinaya uu la qabsaday cabsidii uu iska dayay uu la qabsaday inuu hadalka soo celiyo haddii muddo yarna uu sidaa u sii wado in yar hadduu sidaa u sii wado oo luuqadda step by step maalin walba sidaa u sii wado wuxuu arki doonaa isagoo ku hadlaya xataa laga yaaba aniga pronunciationkayga inuu ka fiicnaado insha Allah wada chainayana englishkiisu in englishkayga kasii fiicnaadaba that's what I want Brother, round of applause, mashallah. Good job. Mashallah. Good job to that student. I'm very proud of that guy myself because he tried hard. Ardayga horta aad baan ugu farxay inuu classka hortiisa soo istaagay. Maxaa yeelay kalsooni badan bay u baahan tahay inuu qofku soo hor istaago dadka wax u sharaxo waliba isagoo isticmaalaya luuqad cusub oo baranayo waliba oo beginner yahay. That's why our priority at Automatic American English College is to build the students' confidence, whether you're learning online or offline. College Kenya Automatic American English waxaan ku dhiirigelinaa macallin walba ku tababarna si khaas ah waliba inay kalsoonida ardayda ilaaliyaan ay dhisaan horumar ku sameeyaan whether ardaygaas hadduu ku baranayo online amba offline kalsoonidu waa muhiim waxaan arkay arday badan oo isbedeshay markay kalsoonida heleen maxaa yeelay kamid baqanay cabsidii meel iska dhigaan way isku dayeen markaa inay luuqadii ku hadlaan macallimiintoodana way garab taagan yihiin always ready to help mar walba sidii u caawiyaan maxaa yeelay macallin ahaan waxyaabaha aan aad ugu faraxno waxa weeyaan ardaygaas oo guulaystay ardaygaa waan u hambalyeynaya mar labaad waxaan ogaaday wuxuu rabaa luuqadda Englishka inuu barto siduu diinta u faafiyo aad buu ugu fiican yahay xagga quraanka masha Allah waana macallin quraan aniguna maanta codsi baan wataa aad iyo aad waxaa loogu baahan yahay dad diinta si fiican u bartay Englishkana bartay sidii dadka gaalada islaamka wax uga sheegaan ay dacwada u faafiyaan waxaan ku arkay Mareykanka iyo Canada iyo meelo badan dad islaamka raba inay bartaan laakiin waxay waayaan nasiib daro dad oo Englishka garanaya oo u sheegi kara oo u macneyn kara oo islaamka wax uga sheegi kara haddii heli lahaayeen islaamka aad iyo aad bay u dhadhamin lahaayeen runta ku jirta waxaan arkaysaan siduu u fiirsanayo ardayda waxaan ku tababarnaa inay luuqadda la socdaan u fiirsadaan isticmaalaan maskaxdooda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala siiyay because muddo yar kooban hadduu qofku diiradda saaro uu baran karo lagama quusto has odhanin beri baan isku day inaan barto laakiin wuu igu adkaatay imikana ma baran karo haska day ha isbiibin try again mar labaad isku day haddaad mar isku dayday haddana isku day try again and never give up marna ha isbiibin and finally I want to tell you we have online and offline classes ready and available for registration to anyone who wants to improve their English language marka ku soo dhawaada mar labaad Automatic American English qofkii u baahan luqadda Englishka laga caawiyo insha Allah nala soo xiriir waxa ku taala macallin Ahmed baa soo diray waxaan rabaa maanta in isdiiwaangeliyo aan horumar ku sameeyo luqadda Englishka Is this your shop? Yes, welcome. All right, I need to buy a few products. Can you help me out? Yes, I can. Okay. What do you great. want? First of all, my wife, she needs a lot of chocolate. She loves chocolate. Okay. You have chocolate? Yes, I have. Can you show me? Okay. I have vanilla chocolate. All and it's right. called caramel. Caramella. Yes. Whoa. Okay, I need this one. Where are you from? I'm from South Sudan. South Sudan. No, I'm joking. I'm from America. You're from. I think you have a lot of money. I got a lot of money. I think yes, so. I think. have a lot of money. Yes. What do you want? All right. I need so this one. Yeah. I need a bag. I need a bag. Bag. Plastic bag. Yeah. Okay. This is one. You got a plastic. Plastic bag. Oh, there's one right there. Yeah. This one. Thank you very much. Yes, thank you very much. Okay. Yes. So we got a plastic bag. Yeah. Also, I need some water because I'm always running. I'm thirsty. I need a lot of water. I have a small water. Okay. How much is this one? I before I was Selling? yes, it's 1.5. 1.5? Yeah, dollar. Okay. Whoa, expensive guy. You from America? You have a lot of money. Okay. You are rich. You are rich. Oh no. The money, especially dollars, come from America. I think so. You have a lot of money. All right. He's going to take all my Don't worry about that. Okay, don't worry about that. Yeah. All right. I need 2 bananas. I need 2 bananas because I like to fast and then I have to break my fast. I need a lot of energy. So do you have 2 bananas? I Yes. need 2 bananas at least. I have. Where's That's. the bananas? Any bananas in there? I check it. Check in there. Yeah. No bananas, huh? I think
No, I you're finished out. it. Yes, I finished. Sorry. Oh wait, I found out. What is? I got some bananas right here. This is not. No, this is not good. Isn't that good? Yes, I been before 2 weeks. Oh, okay. I don't like to pay Okay, all right. because I keep my customers. I'm gonna give you extra money. Absolutely, inshallah. Okay, yeah. and next I need last thing I need from you is a toothbrush. Toothbrush. Yeah, I'm yes, I trying. have. I need a brush. Yeah. Toothbrush. Yes, I have. Okay, how much is this? It's $2. $2. Yes. Is that good price or bad price? It's expensive. It's expensive. It's high quality. Oh, it's high quality. Absolutely, yeah. Thank you so much. You're I'm welcome. gonna give you the money. Yes. Can I pay by SAT or do you want cash? You can pay. I only have half. You can send. I have a Send. number. Okay, what's your number? 441 Okay. 31. You can send. He's ready. Is he ready? Yeah. He's ready to speak. Good job. Have a seat. Thank you so much. Yeah. Sister, I like so many things. Do you have any milk? Yeah. I have 5 babies and they need a lot of milk. So, do you have any milk? No, I'm so sorry. I have only one. If you wanted to Oh, buy. you only have 1 milk. Can you show me that 1 milk? Okay, it's here. Okay, I would like that milk. How much is that milk? It's a little expensive. You can buy $1.5. $1.5. Let me see. Can I see? Okay. Okay. $1.5. Expensive or okay? Expensive? Expensive. Oh, but What's expensive it's is that? It's a good milk. It's good milk. Yeah. 1.5. 1.5. Okay, fine. All right. Also, I would like watermelon and orange. I need a watermelon and an orange. Watermelon. So yeah, because I'm very sometimes I get sick and I have a flu, achoo, and I need watermelon and I need orange. It's here. I can. Okay, mashallah. How You much can is the see- orange? Orange is $0.5. No, I don't want it. How much is the watermelon? Watermelon. Yeah. It is $1. Okay, I'll take the That's watermelon. only $1. Okay, and the last thing I want from you, my sister, is I need sometimes I'm very hungry and I need a papaya. So do you have any extra papayas today? Exactly. I have it. Okay. Give me a discount. How much is that one? It costs only $2.5. $2.5. Yeah. Okay, where did you get that? Because is this a local papaya or is it from Gabile? It's a local papaya. Where? From do you know in some in do you know Lasdao? Yeah, Lasdao. yeah, It's that's from it's there? from there. Yeah. Okay, can I see it? Okay, it's pretty, it's good quality, huh? Okay. Okay, I'll take that one. How much is it? It is $2.5. $2.5? Cheap? Yeah, except Thank you. Okay, I'll take it. Okay. Okay, good. Oh wait, I don't have any cash. I only have check and credit card. it is ready. I can write You can it. take credit Yeah, card? Yeah. Visa or Yeah, MasterCard? accept it, yeah. Okay, let's go. Let's do it. Let's go. Give a round of applause. MashaAllah. I want to just review all of these products really quickly and say it after me so we can get the pronunciation. Okay? It's very easy. Okay? So we say it like in America. Repeat after me. Banana. Banana. Yeah, don't say banana. We say banana. Banana. Yogurt. 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 Orange juice. Orange juice. Yeah, some people say orange. We don't. From now on, no more orange. We say orange juice. Orange juice. Okay, the next one, watermelon. 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 Napkin. 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 Papaya. 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 Mango. Mango. Okay, that's good. Where's my toothbrush? Where's my toothbrush? Did you take my toothbrush? Who took my toothbrush? Who took my toothbrush? You got my toothbrush? I got one right here. Okay, toothbrush. Toothbrush. With a that. Toothbrush. Toothbrush. Very good, guys. And the last one I want to talk about, chocolate. 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 All right, good job, mashallah. Good job, guys. Thank you so much for being on. That's it for today. Now, inshallah, next week, what we'll do is we're going to continue reading. We have a lot of books outside, okay? So after the class, we want you to go outside for 5-10 minutes.